السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani hee waa degdeg tv waa channelkiina waa channelkeena ee subscribe saara channelka gambalelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalada aan halkan soo gelino. like saar videoga hadda daawanaysid like waa muhiim siina share gare oo asxaabtaada la wadaag qayb toosana fariimaha noogu reeb adoo mahadsan. haddaba xogta aan maanta idin hayna ayaa ah fanaanka caanka ah ee Dayaxdal Nuurshe iyo gabadha social media ugu shudan kuna nool magaalada Muqdisho ee Cayuuni qurux ku soo gasha in uu ka dhaxeeyo jacaylkii ugu darnaa isla markaana lagu wado in bisha soo aadan ama bilaha soo socda uu arooskoodu ka dhaco gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. superstar-ka Muqdisho Dayaxdal Nuurshe ayaa xiriir jacayl oo ilaa haddaba socda ka dhaxeeya fanaanad gabadha Farxiya Boss Lady taasoo u muuqata mid hadda xaaladeeda caafimaad ay soo hagaagayso in kastoo waayadii ugu dambeeyay xanuunsanayd. superstar-ka Muqdisho ayaa hadda ka bixi rabo ciyaarta wankaheed isla markaana u gudbi rabo qaybta labaad maadaama lagu wado in aroos labaad uu galo fanaankan. Cayuuni oo ah gabdhaha ugu shidan isla markaana lagu jecel yahay dhanka TikTok ayaa u muuqata mid haatan lagu wado in ay isguursadaan fanaanka Muqdisho Dayaxdal Nuurshe. arrintan ayaa inta badan bulshadu aysan ogeyn ayaa waxaan xaqiijiyay Cayuuni abtigeed oo sheegay in arrintan ay jirto isla markaana lagu wado in ay soo bidhaamto bisha soo socota. hase ahaatee ehelada iyo qoyska Dayaxdal Nuurshe qaarkood ayaa ka gaabsaday arrintan in ay noo sharaxaan isla markaana ay xog naga siiyaan maadaama ay arrintan qaarkood ay noo sheegeen inay ka gaabsanayaan isla markaana ay ilaalinayaan maslaxadda qoyska haatan Dayaxdal Nuurshe iyo Farxiya. hase ahaatee qaybta dhanka iyo Cayuuni qurux eheladeeda ayaa qaarkood si faahfaahsan nooga bixiyay arrintaasi waxayna sheegeen in arooska gabadhan iyo Dayaxdal Nuurshe uu dhici doono bilaha soo aadan isla markaana haatan ay jirto qabanqaabo ku aadan in la xalliyo arrimaha kale ee ku aadan waxa ka hortagi lahaa arooskaasi.